Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo ku soo dhowaada channelka Faarax Fawzi. Maanta waxaan idiin wadaa barnaamij cusub oo taxane inoo noqon doona insha Allah. Barnaamijku waa sheekooyin qosol iyo maad ah oo aan ka soo xigan doono buugga kaftanka Bisle Bisle Jokes oo uu qoray Cabdirasaaq Xasan Maxamed Bisle Rubeeti. Farxad bay ii tahay inaan idinla wadaago inaan ogolaasho ka haysano qoraaga buugga. Mar kalena waxaan leeyahay mahadsanid saaxiib. daawada marka hore waxaan qaab majaajilo ku dheehan tahay u eegi doonaa taariikhda ama biographiga qoraaga oo ku xusan jildiga dambe ee buugga. Cabdirasaaq Xasan Maxamed Bisle, qoraaga buuggan kaftanka wuxuu dhashay maalinkii ay hooyadiis umashay oo 9 bilood u dhammaatay. Dhicis ma aha dheeraadna kuma dhalan sida geela ama mid madax adag, wuxuuna ku dhashay magaalada ay hooyadiis ku nooleed. waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe iyo sare wuxuu uga baxay iskuulkii uu dhigan jiray. heerka jaamacadda wuxuu dhammaystay waxbarashada lagu bariiseeyo oo cambuuladiisa waa dhacsan karaa. wuxuu ka shaqeeyaa shaqo kasta oo ka hor timaada. qoraaga wuxuu leeyahay Soomaalida marka aad ka qosliso kuma mahadceliyaan, kan ugu roon wuxuu ku leeyahay wallaahi xaaraami baa tahay, maxaad been iga dharjisay. wiil saaxiibkay ah oo la yiraahdo Amiin Cali Cadde baa waxay safar isku raaceen dhalinyaro badan iyagoo Delhi Hindiya u socda. waagaas ma jirin internetka, si socod iyo soo socod wuu madadaalinayay, sheekooyin dhacay buu uga sheekeeyaa. hadda ka hor waxaa dhacay, hadda ka hor baa sidaas dhacday. soo noqodkii markii ay soo galeen gobolka AB Andhra Pradesh ee koonfurta Hindiya ku yaal oo meesha dhalinyartaas fariisinka u ahayd ama ay degganaayeen, baa saaxiibkay Amiin oo sheekadii wada waxaa lagu yidhi adiga hadda ka hor ma ahee wax kale ma haysid miyaa? hadda waxaan idin leeyahay aniga xitaa hadda ka hor iyo waxaan rabo baan idiin sheegay, waana ku mahadsanahay. daawadayaal, haddii aan horey u galno buugga kaftanka Bisle Jokes, beejka ugu horreeya waxaa ku qoran nin majaajilista oo la yidhaahdo Yuusuf Halawaasho baa waxaa lagu yidhi maxaad af Soomaaliga ugu shactireen weyde. wuxuu yidhi Soomaalidu lagama qoslin karo, sababtoo ah sheekooyinka ay Soomaalida ku qosasho waa kuwa loo yaqaano hororka ama cabsida. nin baa libaax la booday, cunug baa mas cunay, islaam baa rati haraantiyey iyo wax la mid ah. laakiin carabta wax basiida bay isaga qoslayaan. hadda waxaan leeyahay buuggan waxaa ka buuxa sheekooyin qosol iyo maad ah, waa iska kaftan iyo qaraaxo. waxaad ku arki doontaa kuwa aad la yaabto, kuwa aad ceeb u aragto, kuwa dulmi kula muuqda iyo kuwa caadi kula noqon doona. muhiimadda ma ahan inaad ka wada hesho ama adiga lagu qanciyo, ee waa intii kaa anfacda ka qaado, intii kalena dad raba oo ka heli doona baa jiro. sheekada ugu horreysa ee buugga ciwaankeedu waa beerka iga beddela. gabar dibadda ka timid ayaa waxay tagtay tuulo reerkeedu dego si ay samafal ugu samayso. markii ay tuulada tagtay waxay wadatay hug iyo heen, intaba waa laga qaatay. mar kasta waxaa la dhahaa in adeeray adigaa dibadda ka yimid oo soo helayay waxaan isii. maalintii dambe oday reer tuuladaas ayaa xanuunsaday, waxaa la keenay magaalo weyn. dhakhaatiirtii waxay yidhaahdeen beerka ayuu ka jiran yahay oo haddii aan beer loo helin siima noolaan doono. odaygii baa yidhi iigu yeera gabadha aan adeerka u ahaa oo beerka iiga beddela, ayadaa dibadda ka timid oo soo helaysee. sheekada labaad dabadeeda ayay xoog ku og tahay. islaan qurba joog ah baa gabadheeda waxay la saaxiibtay oo jecel dhex maray nin Jamaican ah. islaamaha Soomaalida waad iga taqaanaaye, gabadhii bay xagxagasho iyo xan ka dayn waayeen. maalintii dambe bay hooyadeed ku yidhaahdeen naahiblaayo gabadhaada maxaa daba dhigay ninkan. islaantii iskama waaline waxay ku tidhi dabadeeda bay xoog ku og tahay. sheekada saddexaad tacsi wacan abaayo. wiil dhaqan celisa baa waxaa dhintay seedigiis, af Soomaaligana si fiican uma yaqaan. walaashiis buu soo wacay si uu ugu tacsiyeeyo, wuxuu ku yidhi tacsi wacan abaayo, seedigay qabriga ha ku baashaalo. sheekada afraad hadda ma tuugsanayay. nin tuug darbi ka bood ah baa reer u dhacay, waa lagu toosay. reerka waxaa u joogay 4 wiil iyo aabbahood. tuuggii bay iskugu tageen, markaasuu beerka ka wada garaacay. qayladooda iyo warnaga celsha baa dariska ku soo baxay. tuuggii waa la qabtay oo la xirxiray. odaygii baa bakoor intuu xabadka jug uga siiyey ku yidhi waryaa xoogga intaanuu kula egyahay maad shaqaysatid. tuuggii baa yidhi hadda maxaan qabanayay, miyaan tuugsanayay. daawadayaal, maanta barnaamijku halkaas ha inoo joogo. hadduu eebbe idmo maalin walba oo axad ah
waxaad barnaamijkan kaftanka iyo qosolka kala socon doontaan channelka Faarax Fawzi. intaan barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono waa Faarax Fawzi oo idinkaga tagaya nabad.